si loo joogteeyo howlaha dowladda hoose ee xamar 22 Agoosto ayuu madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay inuu maamulo in ka badan 3 milyan Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish 29 Agoosto bilowgii hadaljeedintiisa waxa uu bulshada u ballan qaaday inuu la imaan doono qorshe lagu horumarinayo bilicda caasimadda si ay ula tartanto caasimadaha adduunka ma noqon karto mid la tartanta caasimadaha adduunka haddaba sanadii bar kadib maxaa u qabsoomay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu sameeyay wax ka badan 80 dhagax dhig kuwaas oo iskugu jiro dhismayaal xarumaha dadka loogu adeego iyo wadooyin muhiim u ah marinka gaadiidka iyo dadweynaha waxa la hormariyay jidcadeyaashii caasimadda kuwaas oo loo bedelay ama la saaray interlock waxa uu ballan qaaday duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish dhismaha 10 laami oo dhowr degmo maraya waxa shaqo ku socoto 3 kamid ah laamiyadaas halka 7 kalena la dhameystiray wadooyinka lagu guuleystay in lagu dhameeyo dhismahooda waxa kamid ah wadada dekeda xabsiga dhexe maxkamadaha martiini soo martay wakaalada muuska inta gaadiidka booliska ilaa isbeyska mareera ku xigidi baal ayaa laga soo bilaabo seeray soo wad wadada General Daawud ilaa dadka dalsoon waxaan ku xigidnay bidda la yiraahdo cigtoobki laba wado dhaynayna qudan intaan tagaa dhignaa dhameystir waxa hadda meel gabagaba ah maraya dhowr laami oo gudoomiyaha gobolka Banaadir uu dhagax dhigay sida wadada Jaalasiyaad oo dhaxmarta degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley wadada Jarnaal liiqliiqato taas oo ka soo bilaabato afaafka hore ee xarunta degmada Kaxda ilaa isgooska Xoosh wado ka bilaabato isgooska Jubbo kuna dhamaato 4 darjiino wado isku xirta wadada Shabeelle ilaa isbitaalka Martiini hormartana beerta nabadda waxa kale oo barbar socdo biyo mareeno loogu talagalay in biyaha magaalada Muqdisho lagu maareeyo si loo ilaaliyo badqabka laamiyaasha waxa uu marar badan maayarka caasimadda ka codsaday dadweynaha ku nool inay ilaashadaan badqabka dhismaha laamiyada magaalada Muqdisho maadaama uu ku baxay qarash fara badan ayna ku soo qabin laamiga wax muuqdilaya balad nadiif ah iyo bulsho nabad ah waa oraahdii uu maayarka Muqdisho la yimid taasoo moodo in wax badan ka fuleen gudaha caasimadda haddaba fariinta wacyigelinta maayarka caasimaddu waa maxay ballanteena ha ahaato bulsho nabad ah iyo balad nadiif ah niyadeena dhismayso meeshaan maanta dhisnay oo la burburinaayo ama checkpointi ama asgarjiifi aan muhiim ahayn la dhigaayo ama dab la qabadsiinaayo ama taayirro lagu gubaayo niyad noo dhismayso ama qashin yaallo waddadu waa inay nadiif tahay mar walba waa inay dhalaalayso waa in laga ilaashado wax alla wixii wax u dhimaya wax alla wixii bulshada wax u dhimaya ma ogolin danaheeda wax u dhimayana ma ogolin balse waxaan rabnaa inaan horumarino taas nagala shaqeeya